عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. xadiidka labaad taariikhda islaamka waxaa laga wariyey sidoo kale cumar allaha ka raali noqday inuu yidhi: maalin maalmaha ka mid ah annaka oo nebiga sallallahu calayhi wasallam la fadhinaa ayuu nagu soo baxay nin aad u dharcad aadna u timo madow oo aanay ka muuqan astaan safar, nin yaqaanana naguma jirin ilaa uu nebiga ag fadhiistay. Markaasuu jilbaha u saaray, baabacooyinkiisana kor saaray bowdada nebiga sallallahu calayhi wasallam. Markaasuu ku yidhi: Muxammadow, ii sheeg islaamka. Markaasuu rasuulka Allah sallallahu calayhi wasallam yidhi: islaamku waa inaad qirto inaan ilaahay jirin xaq lagu caabudo alla ma ahee, nebiga Muxammedna rasuulka Allah yahay, inaad oogtid salaada, bixisid sakada, soontid bisha Ramadaan iyo xajid beydka Allah haddii aad awoodid. Markaasuu yidhi: run baad sheegtay. Markaasaan la yaabnay ninka wax warsanaya ee haddana leh run baad sheegtay. haddana wuxuu ku yidhi: ii sheeg iimaanka. Markaasuu yidhi: iimaanku waa inaad rumaysid Alle iyo malaa'igtiisa, kutubtiisa, rusushiisa,
maalinta qiyaamaha iyo qadarta Alle, shar iyo khayrba. Wuxuu yidhi, run baad sheegtay. Wuxuu yidhi, haddana ii sheeg ixsaanka. Wuxuu yidhi, ixsaanku waa inaad Alle caabudid sida adigoo arkaya, maxaa yeelay haddii aadan arkayn, asaga ayaa ku arkaya. Wuxuu yidhi, iiga waran saacadda markay dhacayso. Wuxuu yidhi Nebiga sallallahu alayhi wasallam, kaama warrooni. Wuxuu yidhi, iiga waran calaamadaha lagu garto markay soo dhowaato. Wuxuu ku jawaabay, inay addoontu dhasho sayidkeeda, iyo in dadka gabaha la'ay ee qaawan ee saboolka iyo reer baadiyaha ay ku tartamaan sare-dhis. Markaasuu iska tagay. Markii Nebiga sallallahu alayhi wasallam cabaar aamusnaa, ayuu yidhi, Cumarow, ma garanaysay ninkii wax warsanayay? Markaasaan idhi, Allah iyo rasuulkiisa ayaa og. Wuxuu yidhi Nebiga sallallahu alayhi wasallam, wuxuu ahaa Jibriil oo idinku yimid inuu idin baro diintiina. Muslim.